Bismillaahi aad iyo aad bay idin salaamay arday maanta waxaan bilaabanaa course la yiraahdo medical ethics ama medical ethics adaabiyadka akhlaaqiyadka caafimaadka saas inta badan lagu macneeyaa marka anoo kiisa abti doonaya bixin doona course-kan insha Allah tacaala intuu socdo marka introduction baynu ka bixin doonaa marka waynu kusii socon doonaa insha Allah tacaala medical ethics-ka haddii lagu weydiiyo what's a medical ethics waa moral principles weeyaan waa mabaadii nafsiyeed ama mabaadii moral ahaan guiding health care decisions go'aamada qofka caafimaadka ama qofka ka shaqeynaya ama dadka caafimaadka bixiya ama adeegyada caafimaadka bixiya waa mabaadii markaa hagta mabaadi'daasoo hagaysa decisionska go'aanada qaadanayaan mar walba dadka caafimaadka ka shaqeeya oo haddii tusaale ahaan oo kale ayaa mabaadi' ku hagta aanad lahayn adigu iyo wax ku xidha iyo wax kaa hor muxuu ahaye wax kaa hor istaaga waxa laga yaabaa inaad khaladaad badan ku dhacdo marka waxa la yidhaahdaa markii ugu horeysay Hippocrates nin la yidhaahdo ama Hippocrates nin la yidhaahdo ayaa qarnigii 4tanaad bilaabay oo ahaa qofkii ugu horeeyay markaa waa ninkii taariikhaan u horeeyay medical ethics-ka soo bilaabay Nemer Korka oo isaguna la ikhtiraacay 1947 oo lagu waliba xilligii dagaalkii labaad ee adduunka markii uu dhacay research la sameeyay oo syphilis uu ka mid yahay oo dad lagu sameeyay muxuu ahaye research ama study lagu sameeyay cilmi baarisyo lagu sameeyay human being dad bilaadan oo lagu tijaabiyay immunization ama talaal oo markii dambe dad qaar ku dhinteen qaarna ay saameyn ku yeesheen dadna marka dadkaas oo kale xuquuqdoodiiba iyaguna laga soo saaray xeerar marka waan kusii socon doonaa xiliyadaas soo bilaabay marka taariikh badan bay leedahay laakiin intii ugu weyneed baan ka soo qaadanay intaynaan gelin baynu su'aal isweydiin doonaa waxaan isweydiin doonaa kulli casharaanteena dambeeyna ku fahmi doonaa how do we balance patient right with the medical goals sideen u balance gareyn karnaa qofka patientka xuquuqdiisa iyo ujeedada aan qofka u daweynayno ama ujeedooyinkeena dawooyinteena sideen isku balance gareynaa marka waa su'aal aad ka yar fikiri karto xuquuq buu qofku leeyahay aduna waxaa rabtaa in qofkan daweyso xuquuqdiisa qofka sideed u balance gareyn karaysaa waa su'aal la isweydiin karo marka ugu horeysa waayahay xagga dambeeyna ku qaadan doonaa waxa la yiraahdaa why the ethics matter healthcare workers maxay u tartaa waa maxay waxtarkeedu ama waa maxay waxtarkeedu healthcare workers ethics waxtar u leeyahay ugu horeyn wuxuu waxtar u leeyahay trust in la is aamino oo qofkii dhakhtarka ahaa iyo qofkii muxuu ahaye nursing ka la aamino waxyaabaha kale uu taray waxa safety waa qofkii wuxuu dareemaya inuu safe ku jiro oo wixii dhibaato ah laga hortagayo marka qofku ethics-ka garanayo laga hortagayo sida tusaale ahaan civil study waa study la sameeyay sidii aan hore ku soo sharaxay xilliyadii dagaalkii labaad ee adduunka socday ilaa 2099 uu soo gaaray saameyntiisii xataa maxkamadda waa laga garnaqay marka dad baa lagu tijaabinaya talaalka lagu tijaabinaya syphilista lagu daweynay marka dadka si khaldan baa lagu tijaabiyay legal compliance in laga fogaado wax kasta oo dhibaato u keenayo qofka kasta u keenayo oo qofka professionalism-ka ah inuu qofku professionalism noqdo oo qofkan u shaqeynaya dadka u shaqeynaya ama qofkan caafimaadka dadka u shaqeynaya wuxuu noqonayaa qof professionalism oo ka fog waxyaabaha social contract ka hor imanaya social contract waxa la yiraahdaa heshiisyada bulshada dhigata tusaale ahaan inaad ku xadgudubto qof waayahay waxaan soo qaadan doonaa oo course-kiina dhan ku fadhiyaa wax la yiraahdo 4 pillars of medical ethics afar tiir buu leeyahay baynu ku qaadan doonaa course-kiina bas intaas ma ku qaadanaa intaas maynu kolba sharaxayna kolba mid soo qaadanaa
tiirka ugu horeysa waxaa la dhahdaa autonomy. Autonomy-gu waa maxay? Waa in qofka patientska choicekiisa aad wax doorashadiisa qofka patientka aad ixtiraamtaa isaga mooyaane waxa ku ixtiraamsa wuxuu rabo. Waa qodob. Beneficence ama benefit in qofkan aad u qabato sida ugu wanaagsan best interest. Tusaale ahaan aad tiraahdo dawada side effect bay leedahay laakiin taasa tusaale ahaan waxaan dawo side effect qofka ku xun tahay inaad dawada side effect-da yar dooranto side effect-geegu yar yahay waa inaad doorto waxtarkeegu badan yihiin waa inaad doortaa. Marka waxa weeyaan macnaheedu acting the patient best interest waa ka ugu wanaagsan marka qofka aad u doortaa ama adigu maxaa hayay u qabataa shaqada ugu wanaagsan waa inaad doortaa laakiin waa inaad waxba ka faa'iidin waa inaad lacagna ka faa'iidin waa inaad tusaale qof aad oranaysaa buro yar meel ku taala oo lagu jari lahaa wax yar ayadoo dhan qalin weyn baan ka qaaday taas waxa weeyaan waxay ka hor imanaysaa ethics. Way non maleficence waa dinan harm qofka dhibaato u geysan. Justice waa maxay? Waa cadaalad. Fair treatment for the all dadka oo dhan cadaalad baad siimaysaa. Cadaalad baad sameynaysaa. Waa maxay cadaaladu? Waa inaad ayida iyo qofkii ka horeeyay waa inaad ayida horeysiin. Haddii ayida horeysa cadaalad darro waa injustice ama unfair wax la yiraahdo. Marka waxaan ka hortaginaa haddii kale xataa iska daaya ayidada aad ka horeysay dadkii kale iyada ku qabsanaysa guriga tagto kaanaysa wariyaha maanta cadaalad la sameeyo islaanta yar dalka xanuunsan soo diga horeysay ilbay igu dhici gaadhay ama waxyaabo kale ay igu dhici gaadhay. Marka iyadaaba ku caanaysa damiirkaagu marka ha ku siiyo waa moral dareen damiirkaaga ku siiyo inaad justice qaato taas waa qodob. Way marka bilar baynu qaadanaa bilar waa tiirar tusaalena waa ka yar bixinaa deena marka dambe waxaan sameeynaa casharradeena dambe aynu ku qaadanaa bilar kasta wuxuu ku saabsan yahay oo dhan oo ka inta ka badan ka shaqaas. Bilarka koowaad waxaan nidhi autonomy weeyaan. Autonomy waa maxay? Waa respecting patient in qofka aad ixtiraamto respect the patient qofka waad ixtiraamaysa xuquuqiyadkiisa oo dhan their own decision about their health wax kasta ku saabsan caafimaadkiisa iyo medical treatment iyo dawadiisa oo dhan. Example maxaa a doctor must be obtaining informed consent waa inuu qofku consent helaa waa inuu ogolaansho helaa inta aanu tusaale ahaan qalin sameyn ama waxyaabo kala sameyn before the performing surgery inta aanu qalinka sameyn ka hor waa inuu helaa informed consent ama ogolaansho. bilarkeena labaad waxa weeyaan beneficence waa maxay? waa acting best interest waa waxa ugu wanaagsan oo qofka u qabto patientka waa inaad u qabato waxa ugu wanaagsan waa inaad kor u qaado well-being-kiisa waxa ugu wanaagsan waliba uu qofkaas ku wanaagsanaanayo ama ku fiicnaanayo ama uu kor u kacayo caafimaadkiisu waa inaad tusaale qofka waa inaad recommended ku samaysaa ama siisa ku talisaa treatment dawo tusaale ahaan oo kale la siinayo qofka oo most benefit laakiin aan lahayn laakiin leh with the least harm dhibaato yar leh faa'iidada baad bahalaynaysaa. Waayahay waa bilarka marka labaad. Bilarka saddexaad waxa weeyaan non maleficence waa maxay? waxa weeyaan waa dinaha qofkan ha dhibaateyn for the action that could harm the patient ka fogo wax kasta oo qofka dhaawacaya ama dhibaato u keenaya. Tusaale kale example maxaa avoid medication that could cause severe side effect ka fogo dawada marka side effect-geedu badan tahay when the suffering alternative is three meesha aad ka heli karto tusaale alternative kale tusaale kale waxaad ka heli kartaa wax ka badbaadsan ama safe alternative safe oo kale tusaale dawo ka side effect yar ayaa dooran kartaa. waxaa bilarka afraad waxa weeyaan waa justice waa cadaaladii waa in treating definition waa maxay? waa treating the patientnado dhan waa in fairly aad u daweysaa unequally iyo si isku mid distributing healthcare resources responsibly inaad qofkan adeegyada ama waxyaabaha healthcare-ka aad sameynayso ama wixii resource waa in si mas'uuliyadeed maxay u faafisaa oo waliba equally si siman example maxaa in qofka patient-ka inuu helay equal access inuu helay wax isku mid inuu helay tusaale ahaan kale inuu cadaalad sideedii sameeyo helay tusaale ahaan life saving treatment in dawooyinkii life saving tusaale dawooyin khatar badan ama dawooyin qofkaas u dhiman lahaa ayaa qofka aanad ka horeysin dadkii kale ee aad isgareenayseen. Marka waa inaan qof background-kiisu health wealthy ama qof taajir aanad ka horeysin waa in isku ka mid noqdaan dadku
waayahay kaas waa qodob marka halkan waxay noo yaalaa discussion question marka hordhacayno ama introduction intaas ku koobnaanaya maanta discussion questionska waa qof patient ah oo diiday in dhiig lagu shubo isagoo aaminsan aragti diimeed inaan lagu shubi karin qofka dhakhtarka iyo decision noocee buu qaadanaya marka decision noocee ayuu qaadanaya debate markaan niyad ahaan ama adigu baaro ama faalada ku soo bixi ama waxa tira waxaas u qaadan karaa decision noocaas u qaadan karaa miyuu ku socon karaa mise kuma socon karo decisionka inuu ku shubo qofka inuu ku shubo sidee waay sabab waxaas oo dhan soo raacay aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasna kusoo koobina maanta cashirkeena